waftigii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland oo weheliyo gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga Somaliland ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. safarka wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad al-Shire iyo gudoomiyaha wakaaladda qurbajooga ay ku marayaan qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo qorshe hawleedka waftiga ay la qaadanayaan gudida odayaasha aqoonyahanka jaariyadda Somaliland ee dalka Denmark ayaa maanta gaaray. waftigan oo hore u sii maray jaariyadda dalka Jarmalka iyo ujeedooyinka kulamada jaariyadda ayaa ku qotomay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee guud ahaan qurbajooga Somaliland iyo qarankooda. akaarinta ay ku leeyihiin ka qaybgalka maalgashiga iyo horumarinta qaranka iyo dhiirigelinta doorka qurbajoogu ka qaybgalka gurmadka abaaraha, taakuleynta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada Somaliland ee bari, dadgelinta shaqada gudida ictiraaf raadinta qurbajooga Somaliland ee wadamada Yurub, sidoo kale xiriirka iskaashi ee Somaliland la leedahay qaar ka mid ah wadamada leedahay qaramada martigeliya qurbajooga Somaliland gaar ahaan qaaradda Yurub. waxaa sidoo kale xusid mudan in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad al-Shire wafdi balaaran uu hogaaminayo isku jirta ganacsato mas'uuliyiin kala duwan oo isku jiray ay ka qayb galeen shirkada maalgashiga horumarinta ganacsiga ee ka furmay dalka Jarmalka toddobaadkii la soo dhaafay. ay ka qayb galeen shirkadaha waaweyn ee dalka iyo shirkado daneynaya maalgashi inay ka sameeyaan Somaliland. وحسن فارح قمان تلفزيون قرن Somaliland Hargeysa.